maadaama ay de muslim wili tahay waxay iyagu leeyihiin wili de dadkaas ad kamid tahay marka anigu waxaan arkaa gabadhan waxay ku khasbi doonaan inay diinta ka baxdo oo ay si daacada maartay halka inta soo fadhiisato ay tiraahdo diinta islaamka maartay maanta ma aaminsani marka please iyo golaada anigu waxaan isleeyahay waxay bush gareynayaan gabadhaasi inay ku dhawaaqdo inayna muslim ahayn. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta isku soo noqdo wanaagsan. Videogan maanta wuxuu ku saabsan yahay gabadh la yiraahdo Shamima Begum. Marka haddaan maartay ingiriiska aadan joogin kolay haddii aad maqasheen gabadha magaceeda ama muuqaalkeeda aad garanaysaan sheekada waa fahansantihiin waad ogtihiin marka dadkaanan garanayn gabadhan oo hadda aad maartay idinku horeysa Shamima Begum waxay ahayd 15 jir bay ahayd 2015kii dalka Ingiriiska ku dhalatay iyada iyo laba kale oo ay gabdho ay saaxiib yihiin. Shamima Begum iyo labada gabdhood ay saaxiib yihiin waxa ay damceen in ay dalka Ingiriiska ka tagaan oo u dhoofaan dalka Syria hadda xasuusataan dagaal baa ka socday berigaas kooxda dadka maartay qorta ka jirtay baa meesha haysatay waayo magac hadaan sheego maartay YouTube-ka wax buu saaraya marka marabo kelmada hadaan iraado maartay argagixisadan waa garanaysaan afarta xaraf loo yaqaano baa beriga haysatay marka kooxdaas saddexdan gabdhood khadka u soo galay oo ka dhaadhiciyay in ay maartay caawin doonaan diinta islaamka oo ay qabsan doonto adduunka maartay kooxdaas adduunka qabsan doonto marka iyagoo 15 jir ah kooxdaasi khadkay u soo gashay anyway gabdhihii way ka dhaadhiciyeen baasaboorradooda soo qaateen waxay iska dhigeen in iskuulka tagayaan oo kale aroor oo kale way ka laheen way baxeen oo diyaarada qaateen Turkiga tageen Turkiga ka bacdi waxay u gudbeen dalka Syria u gudbeen markay baxeen 3 sano hadalkooda iyo meel ay mareen maartay familygooda macaamay ogeen inkastoo la yiri xiriir bay marmar maartay markii ugu dambeysay familygooda xiriir bay la lahaayeen iyada Shamima Begum laakiin ma caawin kareen waayo dalka Ingiriiska familygooda ay deganaayeen. Shamima Begum marka waxay ka soo jeedaa dalka Bangladesh hooyadii aabaheed waxay ku dhasheen dalka Bangladesh marka laakiin Shamima Begum waxay ku dhalatay dalka Ingiriiska ku dhalatay oo ku soo kortay waligeed dalkeedana maartay meeting oo kumay noolaan marka markii 2019kii waxa laga dhaxelay iyadoo ku dhex nool Shamima Begum oo 9 bilood ah oo sheegtay in labadeedii saaxiibeed ay waxa la yiraahdaa gabadhii Amira Abbas iyo Khadija ay tiri way dhinteen oo weerarkii markaa Ruushka iyo maftaacadada la soo ridayay bay ku dhinteen. Shamima waxay sheegtay markii ay isla markiiba ay Syria tagtay ay aragtay nolosha ay islahayd bad ku noolaan doontaa ay laga dhaadhiciyay dadkii maartay khadka soo galay online ba markaa dadka ka baratay waxyaabaha ay u sheegeen ugu ballan qaadeen iyo waxay aragtay waxay tiri wuxuu noqday waxay ku noqotay nolol adag bay ku noqotay nolosha islahayd wad galaysaa ma arkin waxay aragtay dad ba madaxyada laga gogoynayo waxay tiri waxaan la kulanay nolol adag waxaan aragnay madaxyo la jarjaray oo suuqa la soo bandhigay waxyaabo badan oo maartay maskaxda maartay aad sawireen karenba waxay sheegtay nolol adag inay gashay oo ay ka qoomameysay maartay nolosha ay dooratay marka ay aragtay inay wax u sameysay laakiin markii dambe waxay isku dayday inay soo baxdo laakiin way soo bixi kar weeday. Anyway 2019kii waxa laga dhaxelay iyadoo camp ku degan oo 9 bilood ah oo ay sheegtay waliba in laba baby hore ay ka dhinteen kii saddexaad marka ay uurkiisa leedahay markii dambe markay uu mushay babygii imaba sii noolaan oo pneumonia baa dishay saguna babyga halkiisa ku dhintay marka gabadhan aad arkaysaan 3 caruur ah ka dhintay maanta waxa weeyaan waxa maranaya waa 12 jir meelahaas waxa maanta marka newska ay ugu soo noqonaysaa waxa weeyaan wareysi badan baa lala galay oo khalad badan ay sameysay anigu saan u arko oo maanta keentay in sharciga laga qaado dalka Ingiriiska sida markii ay u ogaadeen inay nooshahay oo ay doonayso ay damacsan tahay inay Ingiriiska soo noqoto waxay ku yiraahdeen nagaho sharciga ka qaadeen baasaboorka ka qaadeen gabigeedu waxay ka dhigeen stateless adduunka meel ay ka tirsan tahay maanta ma jirto waxayna ku yiraahdeen orado ku noqo Bangladesh taasina maarta wax weyn waa xaq darro way gabadhani Bangladesh kuma dhalan way u dhalatay maybe oo hooyadii abeed ba halka ku dhashay oo dal ahaan halkaas ka soo jeeda laakiin maanta dhibaatadan taagani Bangladesh kama keenin oo iyagu uma ogolaan in khadka loo soo galo oo iyaga responsibility-gan Ingiriiska leh laakiin way iska fogeeyeen gabadhii 2019kii ilaa hadda gabadhaas waa bila sharci
caruurteedii way ka dhinteen ninkiyada markaa dee lasii berigiyay ay gursadana wuu dhintay keligeed bay degan tahay marka wax kasta way isku dayday oo ay maartay ka dhaadhicisay dalka Ingiriiska ay leedahay please de isaamaxa 15 jir baan ahaa inan yar oo marka caqligeeda aan u buuxinayn baan ahaa khalad badan baan galay maan ogeyn maartay inay crime tahayba in Syria marka loo dhoofo waxyaabo badan baa markaan ogeyn waan ogahay inaan khalad sameeyay laakiin hal isaamaxo Ingiriiskuna maca dadka inta badan aan comment meelaha ku arkay cadaankan sheegaya mid kule maanta yes hal soo celiyo oo maxkamadda hal saaro midna malaxu ku leeyahay mid kastaba iyada sariirteeda diyaarsatay ha seexato means like adiga waxa gamartay adaa meesha waxa isu keenay marka maanta diidi ka dhaxbax Ingiriisku qofna ma raba maanta inay wax u badan yihiin in ay mid kasta ay ku raacsan yihiin ninkaas waxa la sajid minister oo ka qaaday باسبوركي iyo sharcigeeda wuxuu dhan dalko dhan uu ku raacsan yahay maca gabadhi waxay sameysay maca ay tiraado maaragtay ay ku soo celceliso ay barido ay maca muuqaalkeeda bedeshay si ay soo ekaysiiso maaragtay cadaanka kale dhaqankooda oo kale ay tiraado idinka ka mid ahay idinka idin ekahay waxay dhigtay xijaabkii way dhigtay sideedii bay u labisanaysaa sideedii bay u hadlaysaa laakiin wali Ingiriisku wuxuu ku leeyahay no wuxuu taagan yahay newska maalin kasta lagu soo celceliyaa marka anigu say ila tahay anu waxaan lahaa هلا سو عليو لكن ده محكمة هلا صاروا يدو بتاس ديار بيوتهاي waxay tiri waliba waan caawin doonaa waxaan ka caawin doonaa dawladdan caawin doonaa oo aan sa uga hortagi lahaydeen si gabdho yar kale si aan maartay maskaxda looga qabsan sida aniga laga qabsado kale waxyaabo badan oo aan idka caawin kara jirta oo waxaan idin tusay doonaa maartay waxyaabaha ay kooxdan ay isticmaashay si ciyaalka u soo jiitaan marka iyagu waxay leeyihiin kuma aaminsan waayo wili waxaad u tahay kulli wax weeyaan maadaama ay de muslim wili tahay waxay iyagu leeyihiin wili de dadkaas aad kamid tahay marka anigu waxaan u arkaa gabadhan waxay ku khasbi doonaan inay diinta ka baxdo oo ay si daacada maartay halka inta soo fadhiisato ay tiraahdo diinta islaamka maartay maanta ma aaminsani marka please iyo golaada anigu waxaan isleeyahay waxay bush gareynayaan gabadhaasi inay ku dhawaaqdo inayna muslim ahayn ilaa ay tiraado muslim ma yihiin mooyaane marka ma soo kaxaynayaan anigu saas ila tahay marka asxaabta sheekada hadda la socotaan maartay كل وحياة بدن بعمرت أكتين أنا هكذا صوّد دقين لكن أنتي ندى حتى عن شيء كذا أنت كل عصب تحي وحويان قبضني ما دام أي كواحد أكو بيرتاي إنجليز كوحي ليهين أنا كنا قوم بتهيد كمان صو مارتن كمان أقولنا ذلك نقصو كسون نقطة لكن ما حصل هاي كل ساينس شيء جاي كل كمان هاري صو مركا لا إلا أي دين تكبحضون مركا دين تكبحضون بيعرضون دوران أوكي كالي مركا أنا كنا على الشقي ودقال كأد كل شيء رماركتي نقلا قيب قال مركا نص warka asxaabtu marka idinku saaw aragtaan bal inad soo socodsiyo xaq hoose igu soo qora insha Allah marka videogan waxaan doonayay marka maadaama ay wareegayso maaragtay yani arintani waxaan doonayay tiin maaragtay inaad idinkuna dhibataan saaw aragtaan xaq hoose igu soo qora insha Allah asxaabta waxaan la rajeynayaa in videoga jeclaateen hadda jeclaateen like saara ta kale hadda maaragtay nagu cusubtaa ilaa hadda aad ilaa xaqan aad soo gaadhay subscribe kana sar hadii meesh maaragtay ay subscribe ku ahayn marka waxaan leeyahay asxaabta saasi nabad geliyo insha Allah video kan isku arki doonaa assalamu alaykum